iskariot wuxuu ciise ku gacan geliyey oo keliya 30 dinar ciise wuu ogaa in saacadda dhimashadiisa ee dembiga bini'aadanka dartood ay soo dhowdahay inta uu isagu tukanayay Abo haddii idankaagu yahay iga wareeji koobkan hase yeeshee taasi marnaba yaanay noqonin idankayga laakiin kaaga ha la yeelo oo malak samada ka yimid ayaa isaga u muuqday si uu xoojiyo oo dhididkiisii waxaa loo maleeyay sida dhibco waaweyn oo dhiig ah oo dhulka ku dhacaya maxaad idinku hurdaysaan sarakaca oo tukada si aydan jarabaadda ugu kufin Yudaso adhunkasho ayaad ku gacan gelinaysaa wiilka aadanaha sayidow seef ma la dhacna kalaya oo xidhay isaga intaa haynoo joogto معجزة ma inaad aniga ila timaadaan baa seefaf iyo budad sidaan mid sharci laawo ahay waxaan maalin waliba idinla joogaa macbadka iskumana daydaan inaad xirtaan tan isagoo saacaddiinni ficilka wakhtiga xoogga gudcurku talinayo xidhay isaga si fiican u ilaaliya tani waa maradii uu boqorku xidhanayay adigu mana badbaadin doontaa annaga boqorka weynow adigu mana badbaadin doontaa ninkanna ciisuu la socon jiray naag yahay xitaa ma aqaano iyagoo wada socdaan ah adiguna ka mid baa tahay laakiin anigu ma ahi
shaki kuma jiro inuu ninkani ciise la socon jiray intaa ka soo isagu wuxuu yahay reer Galiili iska tag anigu ma aqaan waxaad idinku ka hadlaysaa ciise inta uu soo jeestay ayuu si toos ah u eegay Butros kadib Butros ayaa soo xasuustay wuxuu rabbigu isaga kula hadlay inta aanu duuqu maanticiin 3 goor ayaad idafiri doontaa in aadan i aqoonin Sayyidow waxaan nin dambiila Sayyidow anigu waxaan noqday nin dambiila Sayyidow dambigayga caafi Sayyidow waxaan nin dambiila Sayyidow oo dambigaygu waa muuqdaa Sayyidow oo anigu mar waan kaa tagay Sayyidow oo dambigayga caafi Sayyidow kuma kugu dhuftay bal qiyaas sii sheeg kan marka xiga kugu dhufan doona Georgia ayaa leeyahay horkeena guddiga isaga soco guddigii diinta ee madaxda ahaa ayaa kulmay si ay ciise su'aalo u weydiiyaan noo sheeg adigu ma masiix baad tahay haddii aan idiin sheego ima aaminaysaan oo haddii aan idin su'aalana iiga jawaabi maysaan